waa gartay markay timaado arrimaha amniga waa arinta ugu horeysa sugidda amniga deegaanada iminka la xoreeyay iyo kuwa loo socdaba laakiin su'aashu waxay tahay maxaa inkaga qorshaysan dhalinyarada la marin habaabiyey ee ku dagaalamaya fikradaha qaldan ee xagga diinta in badan oo kamid ah aan ognahay inay ay qaarkood isu soo dhiibeen qaarna lagu wado haddii dagaalkay ku jabaan inay isu soo dhiibaan maxaabiistaas marka ka soo baxsan karta ama lagu qaban kara dagaalka ama isu soo dhiibi kara ee ururka al-shabaab maxaa inkaga qorshaysan madaxweyne ku xigeen sideedaba dagaalka al-shabaab aan kula jirno dad badan ayaa iska soo dhiiba al-shabaab oo bishii ugu dambeysay kaliya 25 qof oo iska soo dhiibtay ayaan halkan Dhuusamareeb ku haynaa dhaqan celin iyo toosin iyo wax walbaana loo sameeyaa xuquuqdoodana laguma xadgudbo laakiin qofka asagoo dagaalamaya oo fikirka aaminsan oo dadka leenaya lagu qabto tilaabo sharciga waafaqsan laga qaadaya laakiin kan ka hor isu soo dhiiba oo maantadaas cafisku waa furan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda cafisku fidiyay waa furan yahay ninkii isu soo dhiiba waa la soo dhaweynayaa dhaqan celin baa loo sameeyaa bulshadaana dib loogu celinaya laakiin kan ku dhagan fikirkaas qaldan ku dhagan oo raba ummadda Soomaaliyeed dhiigooda inuu daadiyo kaasi sharciga Soomaaliya iyo sharciga guudba wuxuu ka qabaa la maraya waa gartay marka cafiskaas ay hadda albaabada u furan yihiin ilaa intee uu socon karaa ilaa uu madaxweynaha jamhuuriyadda uu soo xiro cafiskaas waa furan yahay waqti walba qofka shabaabka ee ka soo tanaasula fikirkaas ee soo dhiiba ee procedure-kii loogu talagalay ee dawladdu ugu talagashay maraya waa la qaabilaya waana la aqbalaya waan gartay waxaa jira dad fara badan oo deegaanada iminka la xoreeyay ama deegaanada loo socdo ku nool oo ka cabsanaya in haddii maamul ahaan ama dawlad ahaanba aad qabatiin deegaanadaas la xoreeyay sidii hore u dhacda meelaha qaar in aynan sii joogi doonin oo iyaga laftirkooda ay cabsanayaan maxaa garantiida oo la hubo oo la sugo aad dadkaas siinaysiin haddii maamulkii gacanta ku qabatiin haddana meelaha qaar hadhowta laga soo baxo dhibaato horla ayay ku noqonaysaa dadkaas oo lama oran karo maxaa marka aad caawa fursad ahaan u sheegi kartaa dadka deegaanada loo socdo haddii gacanta aad ku qabataan oo ay ku nasan karaan oo caawa ku seexan karaan midaasi istiraatiijiyad rasmi ah uga degan dawladda galmudug iyo dawladda Soomaaliyaba waana istiraatiijiyada hadda aan ku dhaqno xareerdheere waxay ahayd degmo 15 sano iyo ka badan ku jirtay gacanta al-shabaab ku jirtay ururaanta ay la degeen maantay noloshii waa u soo laabatay dadkii ganacsi bay ku jiraan dabaaldegii xafladii 14 Agosto habeen hore xarimaana habeen hore way ka dhacday meesha la yiraahdo xareerdheere noloshii baa dib ugu soo laabatay markii ugu horeysay taariikhda xareerdheere ayaa internet la geeyay maysan haysan internet maysan haysan mataqaanaa waxbarasho maysan haysan caafimaad isbitaalkii degmada la furay waxbarashadii dib loo furay noloshii bini'aadamka dib u soo laabatay shacabku ayagaaba raba hadda inay difaacdaan degmadooda ayagaaba raba sababtoo nolol bay arkeen mugdi inay ku jireenna waa arkeen meesha waxa loo diiday diintii in laga bartaa la diiday dugsi quraanadii baa laga xiray masaajidadiina waxa laga dhigay hoteelo ay seexdaan maleeshiyaadka al-shabaab marka marna qorshaha nooguma jirto degmo aan gacanta ku dhignay in dib looga baxo